English News af Soomaali ereyo cusub overly xad dhaaf ah extremely aad u badan extremely aad u badan comprehended fahmid comprehend fahmid compare isbarbardhig directive dardaaran ama tilmaamid directive dardaaran ama tilmaamid straightforward toosan transparency hufan terminology eray bixin logical si muuqaal leh si macquul ah logical macquula ama si macquula coherent isku xidhan compelling soo jiidasho leh consistent joogto ah ensure hubi ama xaqiiji apparently sida muuqata transmitting gudbin spreading faafin impacting saameyn na mar kale ku celino overly xad dhaafa extremely aada u badan wax tiradiisa ama xajmigiisu aada u badan yahay comprehended fahmid waan fahmay la fahmi karo fahan compared isbarbardhig laba shay oo la isbarbardhigay tayo ha noqoto tira ha noqoto isbarbardhig straightforward toosan oon leexleexasho lahayn ama wax isku toosan transparent hufan waxaan musuq lahayn la isla wada ogyahay wadadiisu caddahay terminology eray bixin tusaale eray bixin maxaa lahaa magac bixin faahfaahin waxa weeye eray bixin ku tahay faahfaahin waa qeexid aada qeexayso wixii isagaha ee dhacay logical si macquul ah si garasho leh caqli iyo cilmi ku dheehan yahay coherent isku xidhnaanshahan wuxuu inta badan noqdaa xidhiidh ka dhexeeya dadka laba kooxood laba qof laba group iyo wixii ka badan xogtana kala qaata compelling soo jiidasho leh waa shay kolkaad aragto attractive uu la mid yahay ku soo jiidanaya ama aada jeclaysanayso consistent joogto ah qoraxda inay soo baxdo waa joogto maalin walbana aan ognahay gobolka soo dhaca aan rajeynayna inay qoraxdu soo baxdo ensure hubi iska hubi waxaas xaqiiji apparently sida muuqata transmitting gudbin halkana waxaan kusoo aragnay gudbin xog aada hayso ood qof kale u gudbiso ama aada siisay maxay noqotay transmitting information transmission gudbinta wararka ama xogta spread faafin ama faafid tusaale xanuun baa meel ka dhacay sida shubanka oo kale coronavirus oo kale waa faafay si fudud buu ku faafay faafin qofka gudbinaya ficilkaas sameynaya qof hargab qaba inta ama corona qaba inta ka tagay magaaladii wada tallaalay maxay noqon hebel ayaa faafiyey xanuunka faafin impacting saameyn xanuunkaasi markuu faafo dadka dhex galo saameyn buu yeelanaya dhaqaalaha nolosha caafimaadka saameyn ayuu ku yeelanaya maxay noqotay impacting saameyn ayay noqotay
taasaa ku daynina. Asalaamu calaykum.